عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صاحبة الصوماليات ملك السؤال جوكتان يستكستان ضد لسان حلو ونكسر مقال كاسرة وحوها حسن محمد أقول ويتهالي بنت لان يجب لان كنت المامي تولوين يرير أو اسم هذه وحاول يوضعوا ما أنت ور عص بوكو قاضي جبلان iyo Puntland wuxuuna taagay dalka hal dawlad ka jirta aniga ka dawlad ah federal ma jiro wax kale ma jiraan waxa weey waa inaad aniga ay dhageysataan oo noqotaan mustamiiciin al-kiram hadda diidana talaabo idinka qaadiya waayahay laga kale Xasan Maxamed Cali Suud wuxuu soo abaabulay mudaharaad oo ugu magac daray mudaharaadka mucaaradka baladofus معارض كي مقدشة الجلاسو كي يرمى مظاهرات كرتار السماء ما كرتار إسقى أياه وحوسوا أبابلي مظاهرات وقار مظاهرات كان واحد نجاي نمشي شجرة معارض لكن مركز نجاي ستان هذا الكولا وحد دريمي سر أباد جران كرتار اللي هي أغلب السيئة إن من كاسو يجي إن من وسوا أبابلي حسن شيخ محمد أبل لبض دقيقة أي رداون maalinta arbacada haddii alla qadaro 15 bisha July inaan qabanayno mudaharaad nabadeed kaasoon ka qaban doono Soomaaliya oo dhan yaa qabanayo cid kasta oo aragta in wadankan nidaamkiisi 4 sano ahay waqtigiisi inuu dhamaaday yaa nagala qayb galay dhalinyarada sacboolayda aan qoryaha haysan shacabka hooyooyinka dhammaan haweenka waa nagala qayb galayaan waxa nagala qayb galayo sidii hore loo sheegay ardayda jaamacadaha iskoolaadka cid kasta oo dareensan in xuquuqdii ay lahayd aysan si sax ah u helin waxaan baaq u dirayaa xisbiyada doorashada qaadacay waxaan baaq u dirayaa xisbiyada malxiiska inta laga dhigtay soo taabtay darbiga soo dhawaada albaabka NCFC waa idin furan yahay maamulka hadda jooga marka waxaan nahay mudaharaad nabadeed dadku baaqaya waxaan ka codsanaynaa amniga inay ilaaliyaan magaalo kasta oo mudaharaadkan ka dhacay maalinta arbacada 15 bisha July hadii alla qadaro waxaan leenahay maamulka hadda joogo dalka adiga iyo qolada mucaaradka kaliya ma aha idinkii qolada mucaaradka kaliya ma mucaarad kala jira isku daya dalkan inaad doorasho ka qabato hadii aan doorasho laga qaban oo sidan uu ku sii socdo waxay gaari doontaa wixii Bangladesh ka dhacay wax lamid ah intaysan gaarin qabashay leedahay hal la qabto waxaan ku soo gabagabeynayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba joogtaan mudaharaadkaas dalka waa la wada leeyahay dalka Muqdisho kaliya ma NCFC isbahaysiga qaran ee isbedel doonka wuxuu joogaa Soomaaliya oo dhan waxaana la arki doonaa maalintaas hadii alla idmo waxaan ku dhex jirnaa shacabka waxaan saaxiib la nahay dhow shacabka waxaan la shaqeynaa shacabka waxaan ku xiranahay shacabka ma haysano qoryo aan anaga meelaha dadka isaga xayirno dadku waa u furanahay sida gudoomiyaha dhalinyarada uu sheegay waa arkayseen shacabkan gaarayna insha Allah taala waana soo bixinayna hadii alla way warkooda waxa ku jirta anagu ma hubaysnin qoryo ma wadano waxa weeye anaga ayaana mudaharaad ka qabanayna dalka oo dhan حاشق محمود دب حسوسه كلمة دي سي أحد أفك أنت تكهليسه أنا وكم هيسمه إنك صوت تسوق معركة بين شيء أو سعودية بجاج وهندي سبوع الحري لكن وحوجري قولي هذا صار قاعدته أقول الدرينا كانت قبيلة ولا أقول الدرينا أي بحنيه بحي وعوي مركز لمن كان وعن سؤال بقول حاشق محمود كدي مركي عدد حوجن حاجة بيش عالم كوكسر فول عدد كان صاح ورنيه والعملية الديمقراطية والله صوت دورتي oo qaab baarlamaanteeri ah ku yimidaan ahay mudaharaad ma ogoli oo waxa weeye cid banaan ku soo baxda waan dilayaa waan xirayaa isla socon maysa is cadeebaan ma kaliya taliya tahay oo dalka ma afgambisay mase waxa weeye jidkii lagu soo doortay aad ku soo taa waxa weeye anigu ma ihi kaliya taliya mudaharaadna waa ogolahay waxa weeye nimanka iyaga qoriya wato dalka iyo dadka inay boobaan raba mooyaane anigu dimuqraadi baan arrinka marka si uga dhabeeyo ayuu kooxdaas waxa weeye xooga u dhiibay wuxuuna yiri ku dhawaaqa mudaharaad isu soo baxa maalintaas ay mudaharaadka ku dhawaaqayna meel kasta oo iga suurta gasho ilaa qarsha xasan ku bixinayaay waa laga soo bixi doona marka waxaan leenahay xasan waa lagu fahmay si maaragtay cad ayaan ognahay hawshaas adigu inaad soo abaabusho ugu dambeyn maalinta birri ah magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Dhoolatuskii ugu weynaa ayuu ku soo bandhigi doonaa waxa ku jira Faarax Goodi iyo awood sheegasho baabuurta تانجيد
diyaaradaha adduunyada saas isu dhaafaysa ayuu berri soo bandhigi doonaa taas oo fariin loogu diray maamulada Puntland Jubbaland iyo kooxda mucaaradka ay ku sugan magaalada Muqdisho waxa weeye marka insha Allah taala waxaan leenahay Xasan Maxamed Cali Sow hadduu cimaamad soo xirto iyo hadduu koofi soo xirto iyo hadduu suud soo xirtaba annagu meesha uu socdo rag garanaya ayaynu nahay yaa la idin khaldin kooxdaas mudaharaadka sheegaysa oo mucaaradka iska dhigaysa waa isla kooxda Xasan Sheekh Maxamuud muxuu ahaytay mudaharaad yani bandhigyada iyo muxuu ahaytay berri ciidamada uu soo bandhigi doonaan iyaguna waa hanjabaad oo wuxuu doonayaa dadka inuu niyad jabiyo waxaan leeyahay cid kasta ee Xasan Sheekh Maxamuud ka soo horjeeda ficiladiisa ha ogaado in uu cadow ku soo socda yahay waana inay difaac gashaa cidaas ma go'aan noqon kartaa waxa noqon kartaa mucaarad waxa weeye marka insha Allah taala Xasan aniga waxay ila tahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhigi doono lugti jiilaal ee dadka Ilaahay dhaafiya laakiin rafashadii u dambeysay ku jira neefkana markii la gowraco xoog buu u raftaa macnaheeduna ma aha in uu soo noolaanaye awoodii ugu dambeysay naftu uga bixineed buu isticmaalaya Xasan ayaa taas la bad barnaamijka intaas ku soo galgoynaa hada bila tawfiiq salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh